kulan wacan daawadayaal ciid wanaagsan ayaanu dileenahay idilkiinba meel kasta iyo si kastoo codka iyagu idiin soo gaadho iyo si kastoo noo daawataan halkani waa TV-ga Kalsan xaruntiisa Boosaaso barnaamijkani waa barnaamij aan ugu talagalnay ciidka iyo waliba dhammaan abwaanada gobolka iyo fanaaniinta gobolka bari inay halkan ayaguna la wadaagaan saaxiibadooda kale ay hawada ka salaamaan ciid wanaagsan marka ugu horeysa mar kale waxaan dhankayga midig fadhida Habboon Cabdilaahi Salaad oo kamid ah fanaaniinta gobolka bari sidoo kale abwaanka weyn aad baad u garanaysaan abwaan Cabdi Cali Boos runtii wax badan baad ku xasuusataan beerkayga adaa ku weyn ciid wanaagsan marka ugu horeysa aan Habboon iyo dhanka midigta ka bilaabo ciid wanaagsan Faadimo waxaan leeyahay bulshaweynta ku nool Buntland ima meel walba ay joogaan waxaan leeyahay oo ciid wanaagsan macal ciideen ayaan ku leenahay macal ciideen waa tahay abwaanka weyn abwaan Cabdi Cali Boos kulay dadku in badan aad bay ku garanayaan ciid wanaagsan marka hore waa mahadsan tahay Faadimo taxadar bulshaweynta Soomaaliyeed af Soomaaliya ku hadashay meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa ilaahay ha nagu gaarsiiyo basbaas iyo barwaaqo iyo nabadgelyo waad mahadsantihiin TV-ga Kalsan ayaa barnaamijkan si gaar ah idinku qabanaya oo waxay noqon doonaa barnaamijad saaxiibadiina kale hawada uga salantaan oo ciidkan aad la wadaagtaan farxadaasi runtii بعد رمضان كدب waxaan ku faraxsanaa maanta inay maalin farxadeed tahay oo tahay maalin aan aad loogu wada ciidayo guud ahaanba Soomaalida iyo adduunka caalamka meelaha dhammaan islaamka ay joogaan marka ugu horeysa barnaamijkan waad garanaysaan waxaan ku furan doonaa heestii Maxamed Suleymaan Tubeec rabbi ha u naxariiste ciid wanaagsan okay Faadimo maadaama aan rabaan tahay oo aan muusi la ogolayn waxa aan ka xogaa inooga qaadaya heestan ciidal alamanta ayaanta iyo ciida wanaagsan alamanta ayaanta iyo ciida wanaagsan ilaahi inasi isaga ku abaan ilaahi inasi isaga ku abaan way ahaatay maanta si wanaagsan u iida way ahaatay maanta si wanaagsan u iida arday joogta iskuulkiyo odayaal talinaya arday joogta iskuulkiyo odayaal talinaya ilaahi inasi isaga ku abaale ilaahi isaga ku abaale way ahaatay maanta si wanaagsan u iida waxaan leeyahay maantay waa maalin ciid ah waa maalin farxadeed meel walba ay joogto Buntland Soomaaliya si fiican halooga iida ayaan leenahay farxad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa maadaama ayba tahayba Buntland hoyga nabadda ay tahay waxaan kaloo aad ugu hambalyeynaa dadka soo qaxay ka yimid Yamanta sida wanaagsan ee Buntland uga qayb qaadatay soo dhaweynteeda ayadana waxaan leenahay ma sha Allah tabaarak awalba Buntland waxay ahayd hooyigii nabadda baan leenahay aad bay mahadsan tahay Habboon Cabdilaahi Salaad oo kamid ah fanaaniinta gobolka bari aad baan ugu mahadcelinayaa runtii waxaan iyana aan ilaawi karin marna oo aan aad ugu mahadcelinayaa Green Sports waa meeshan aad ka quruxda badan oo ah meesha martida maanta aanu nahay ama barnaamijkan wanaagsan aan ku qabsanayno waxaan mahadcelinayaa asxaabta dhanka kaamirada Maxamed iyo Khalid Ayuuni aad bay mahadsan yihiin barnaamijka ayaan wali ku sii guda jirnaa ciid wanaagsan ayaan leeyahay asxaabta meel kasta ay joogaan iyo dhammaan bahda fanaaniinta waxa leedahay bahda wariyaashu waa dad aan fariyo faraantiisu ah aad ba maasantay abwaanka weyn abwaan Cabdi Cali Boos runtii dad badan markay magaca maqlaan waxaan filayaa inay xasuusan doonaan beerkayga adaa ku weyn bal abwaan qisadaas marka ugu horeysa waan u gudbi doonaa
heesahaaga kale iyo waxyaalaha kale aad adigu aad maxaa la dhahay abaabushay ama adigu maskaxdaada ka yimi heestaada beerkayga adaa ku weyn kooshi yare iyo baan maleynayaa inay farxiyo rasta labaduba ay ku luuqeeyaan. waa mahadsan tahay Faadimo Taxadar. taasi waxay ka mid ahayd maalmihii noloshayda ayay ka mid ahayd. waqti adigu aan Addis Ababa joognay ayaan gabadha caruurtay xaaskayga anagoo Maxamed Karaama iyo Bashiir Cali Amiir iyo Kooshiyare raggaas wada soconna ayaan guriga nimi anagoo barnaamij soo dhignay. marka xaaskayga waxay tiri maxaad aniga heesa layma sameeyo intaasna dad kale u amaana. markaasaa Shamuuri wuxuu yidhi haddaba waa inaa u samaysaan. beejkii u horreeyaan marka samaynay bilow bisinka u weyn aqoon barashaa ka weyn bilaahi yaqiin u weyn xijaabna burdaha u weyn. habarayday markay yaabto waxay dhigi jirtay bisinka iyo burdaha bilaash la iskama hadlee jacaylkaad beertay baa intaa igu baahayay. boggii aramaa ku weyn wadnaha bohliyo ku weyn caashaqu beenbeen ka weyn bukaan xaalkani ka weyn beerkaygaada ku weyn. maalintii la laxameeyey 2 beri kadib heestii waxay noqotay markaan fiirnay heesaan caadi ahayn. markaasaan ku darnay indhaha bilic baa u weyn ballan guur baa u weyn barwaaqa nolol weyn jacaylkuna waa bahweyn oo qabiil ma leh Senegal aad jeclaanaysa haddaad doontid. run baan laga bayrin oo kalgacal lama baylaha shay axdigu buuraha ka weyn boggii buuraha ka weyn. beejka saddexaad wuxuu yahay bishuba xidigaha ka weyn arday baraha ka weyn baddu wabiyada ka weyn oo barduhu geedaha u weyn naftayda ku bogto jacaylku ma baabay bulshada adiga ila weyn. marka maxay dareentay markaad heesta soo qaaday? dumarku aad bay u ammaan jecel yihiin yaa aad maya la kuma xantay waa wax dhaba waa ammaan jecel yihiin koodhe. waqti maaragtay haddii aan burbur iyo ku jirnay mararka qaybtooda waxaa jirtay markaan xoogaa aan isqabanno kaban yaroo aan lahay Ethiopia aan ku haystay markaan xoogaa igu xanaaqdo inaan meel cidla ah oo u dhow ayada ka maqlayso intaan la istaago aan kabankayga tunto heestii aan waagaa u sameeyey aan qaado temperature-keedii hal mar kacsanaa hal mar dhulka tegaya koodhe. marka way ku imanaysaa maya dee xaaladii kuleylkii oo dhan waa digaya halkaas ku baaba'aya. marka hees bad qaadaysaa heest maya ma qaadi maayo muusigii kabankii waxaan ka dhigayaa marna waxaan ka dhigayaa xoogaa way iska tuman jiray mararka qaybtooda waxaan ka dhiganaya marna muusigii aan ka dhigaya marna codkii aan ka dhigaya. markay maqasho heesteedii kuleylkii hayay iyo xanaaqii hayay hal mar u degaya temperature-ka wuxuu tegayaa 0. marka heestaas waa hees waxay ahayd family album. awaan waad mahadsan tahay. habboon waa u tegi doonaa muddo dheer baad kolley waxaad leedahay heeso badan aad leedahay oo fanaaniintu ay qaadaan. Axmed Biif baa ka mida Kooshiire laftarkiisa ka mida Faysal Xawaase aan aniguba ka mid ah heesa qaar aan jeclahay runtii Shamuuri aad iyo aad Siciida way fara badan yihiin. marka bal ka waran heesahaas tii kuugu horreysay oo aad qaadid iyo tan beerkaygaada ku weyn baa kuugu horreysay mise kuwa kale kaga horreeyay? iguma horreyn waxaa iigu horreysay adigu waxaan garanayaa adigu waqtigan dugsiga dhexe dhiganayay heesaan iska samayn jiray oo waxaan jeclaa xataa mataqaanaa dhalinyarada inaan la kaftamo gabar maaragtay hees jawaabi karta oo kaleeto waqtigan telefoon iyo ma jirin waraaqa la isu qori jiray barisamaadkii miidan soo gaarin idinku sheeka ku maqasheen waxa waaye qoraal la isu qori jiray kuwa saaxiibada xataa waxaan jeclaa markii maaragtay aan gobolada iyo markii national service-kii iyo kaleeto markaan aadnay warqad dhan oo la soo qoro inaan ugu jawaabo muxuu ahaa aan ugu jawaabo gabay waan yiraahdo saaxiib gacmaha sare u taag hawadana salolo saacbada u dhigo salaan ka timi saaxiibka salaan aad ba warqadii la soo qoray ayaan u jawaabayaa maya wiilashii saaxiibada ahaa marka suugaantu saasay ahayd adigu dugsiga dhexe ayaa igu horreysay waqtigaas. ma xasan kartaa gabadh warqada ku soo qortay oo niyo gabdhuhu inta badan suugaantooda ma soo shaacbixdo koodhe. inkastoo anigu hadda ka hor arkay waqtigaan joogay faafreebkii Soomaaliya gabar samaysay heesa badan oo jacayl ah ilaan suugaantu inta badan waxay ka timaadaa xagga jacaylka iyo dhibaatada qofka ku dhacday iyo qof inta wixii aan heredity ahayn oo dhaxal ahayn. wati la yiri hadaan gabayga uurko bukiya armi ka keenin ama si olol jacayl iyo xanuun kugu idbaareen afku baad kala leedahay arag ma yeeshan
ها qof waxa dhibaato soo martay ama jacayl qabtay oo waxa arkaysa iska butacmay iska furmay inta kasta tiri gabdhuhu way jecel yihiin maanta hees dhex yar oo Axmed Biif qaado waa jirtayna goor dhawaan taas wax ka weydiin doona bal haboon jooga iyo muuqa mid kamid ah kaalmada suugaanta waliba aan aad ka u jeclaa bay kamid tahay bal haboon heestaasi iyo wax adiga ku saameeyay sida abwaan Cabdi Cali Boos oo beerkigaada ku weyn oo heestaasi isaga ay familkiisa ama qoyskiisa u qusayso waxa weeye horta heestan joogayga iyo muuqa heestan waxa sameeyay abwaan leeyahay Allahu naxariistay jagaange kooxda oo meel isugu timid ayuu heestaa ii qoray ujeedkeeda iima faahfaahin barnaamij yar baan waxaan dhigaynay googoos ah heestaa markaa boobsiis buu igu dhiibay googooskii shay miro dacar aniga Bashiir Faarax Guray fanaaniin badan baan ahayn oo googoos dhigaysa wuxuu yiri heestaa saboonay soo xafid laba qalcadood bay ahayd dabcan gabar wax jecel oo ninka ay jeceshahay ragga kala qurux badan yahay heestu ku saabsanayd sidii baan u qabtay aniguna ma oran abwaan heestan ma cid baa hore ugu samaysay ma ujeeda gabar aad ugu jeceshay ujeeda maba oranba sidii baan heesti ku xafiday sidii baan ku qaaday dadweynihii baa la dhacay isla habeenkiiba 2 jeer baan ku celiyay sidii baan ku xafiday hadii aan masrax la soo istaagana loo jeceliyo bal heesti maxaad naga maqashinaysaa heesta waxaa la dhahaa jirida sogsogiyo galolka ayaba kala roon jibalka talada jangooyaheeda ragoo kala jaadbajaada talada jangooyaheeda ragoo kala jaadbajaada adiga jooga iyo muuqa midaan kula simo jamalka indhaha wali kuma jacsinine indhaha wali kuma jacsinine jamal qurux maadiga waata heesbeedkeeda koowaad run ahaantii heestaa markii aan qaadayo aniga laftigaygu sibaan jacayl xagga maaragtay baa la iigu soo degaa dadweynuhuna aad bay uga helaan anigoo macnaha si fiican ula xadraynaya jecelna baan masraxa ka degaa waa tahay aboonay ragga kala jaadka maxay macnaha loola jeedaana inkastoo tiri abwaan baa qaaday haddana abwaan baa dabcan heestan miraheeda ii dhiibay oo leh macnaha raggoo kala jaad ah macnaha mid dheer mid gaaban mid kale midna macnaha aniga adiga mid kasta igala mudan indhaha mid kaleba kuma jacsiya baan ku iri waa tahay heestan waxaad aniga laftarkayga hadda san ka arkay xoogaa waxay kugu yeelataa mararka qaarkood dabcan wasaab waan ku sheegay xasuus baad dareentaa xasuus baad maxay adiga saameyn heestan kugu yeelataa wallaahi aniga waxay igu yeelataa jacaylo badan oo aan iska soo maray baan xoogaa xasuus igu abuurtaa dee waa kaa jacaylada ma jacaylaad ku guulaysatayba mase waa jacaylo ku baalmaray dumarkuna waxaa leedahay jabkooda way qarsadaan sida hadda abwaanka laftarkiisu sheegay maya anigu jabkayga ma qarsanayo waxaana jabkayga u qarsanayn anigu fanaanad baan ahay been lama sheego weli ima soo marin jacayl aan ku guuldaraysto ima soo marin dadku waa isqabtaa raggii dumarku waa isqabtaan haddii la isqabto macnihii kala tagna waa dhacaa calafku waa dhammaadaa laakiin weli nin i xumeeyey ninkaasaa intuu saa ii xumeeyey ama aan la sheekaystay dhallinyarnimadayda xataa ima soo marin waan ku guulaystaa maasha allah tabaarak maasha allah aad baad mahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa dhex yar kolley gabadh marka la ammaanayo inta badan waxaa la yidhahdaa gabadhaas waa dhex yar tahay gabadhaas waa noocaas gabadh jilaqsan ammaanta dumarka ka mid tahay bal taasna ma xaafaday iyana joogtay mase meelo kale abwaan horta ammaantii waagii hore dhaqanka soo ahaan jiray iyo hadda waa isbedeshay waagii hore waxaa dhihi jiray gabadhaas cabaaryaha leh gabadhaas garaaraha leh gabadhaa dhexda yar gabadhaas maariin dhalaalka kowdhe laakiin hadda waa laga baxay gabadha waxa lagu leeyahay cadaanta suuqa laga soo iibsado suuqa bay taala kowdhe gabadhaas wallaahi hilib kale oo joog kale waa lagu leeyahay gabadha caasada ahayd sanado waxaa jiray sanadihii afrooga
oo dadku maaragtay dhexdu saa u godnaan jirtay oo ya hadda ma jirto jacaylkii waagii horeeto soo ma arki jirin soo maqli jirin gabadhaas isgubtay oo waa isgubtay oo wiilay jeclayd oo sunay cabtay iyo ma jirto hadda jacaylkii wuxuu noqday oksiyo naftiisa laakiin anigu waxaan aaminsanahay qofkaas isgubaya inuu xoogaa xanuun ay jirto qofka naftiisa qof kale u halay wallaahi hadda aan ku warramay hadda jacaylku naftiisa waa xanuun naftiisa marka hadda waxaa arkaysaa aniga iyo aabbahay iyo wiilkayga waxaan isku soo gaarnay hal qarni 100 sano aniga iyo aabbahay iyo awoohay ama aniga iyo wiilkayga iyo aabbahay 100 sano aabbahay markuu guursanayo dhaqanku waagii hore wuxuu dhihi jiray gabadhaasi dhaban iyo dhalasho ma leedahay anina waa soo gaaray wana waxaan soo gaaray gabadhaas oo ma qurux badan tahay dhaban ma leedahay wiilkii wuxuu leeyahay dhaqaale ma leedahay hadda tusaale waa time ka hadda wiil iyo gabar wiilkii hadda wuxuu ku taagan yahay dhaqankii wanaagsanaa oo jacaylkii dhaqankii wanaagsanaa ku wadaa gabadhiina dhaqankii iyo jacaylkii wuxuu ka galay dhoof tusaale wiilku wuxuu leeyahay ilaan guurka fiicani farxad iyo damaashaad nafta ugu filan yahay ku fasiro wadaadadu jannadii firdowsaad wuxuu furuqa cudur iyo ka xun yahay fallaaraha fahmada kaa xumeeyaa markuu iga fogo iyo farafootan gaari fiiro dheer u yeelo faaqidaada caashiqa inu faraha saaree ha ka filo dhankaagana gabadhi maxay ugu jawaabaysaa arrin baan ku fariyo iyadoo far waaweyn ku fiira toosine facay kama harayo falxuma adduuniya faqri dooni maaye filanimaan lahayn oo gaari folfa ii gadin fiise yuruba ii hayn ku filan xaqaygaba kuma xireeya faraqay caashiqa faqiirka ha fadhiyay sidii falo jacaylkiiba waxaan malaysaa inuu noqday oksiyoon waa tahay heestii dhexyar laakiin dhexyar horta waa gabdhaha puntland ka mid ahayd quruxdeeda iyo dabeecaddeeda iyo adaabteeda iyo akhlaaqdeeda markaan arkay ilaa waxa aad samaynaysid waa wax lagaaga sheekeeyey waxaad aragtay waxaad qiyaastay inkastoo qaar ay jiraanba qaar lagu riyoodo xataa hadhow la sameeyo ma garatay may noqon mayso anigu hadda gabay la yidhaahdo horta yaa dambiila ah waaba ku riyooda anoo tirinaya horta yaa dambiila ah waa ku riyoodayba maya siyaasad maahan waa nabad wuxuu waa wada nabadda ayuu ka hadlayay iyo burburkii iyo dhibaatooyinkii lasoo maray iyo wax noocaas marka dhex yar amaani dhammaan yartay u dhammayd walee dhex yaray dhabtii caashiqaaga igu dheer dhaayaha araggaa ku dhaygaga oo dhirta u baxlaad ka dhiganta dhiggaagii adaa u dhaban wacanoo u dhegan nuguloo u dhowrsoon ayay ahayd ya waxba ulama harin waa kaa may wax ma qariyo habboon sida gabdhaha dumarka u qariyaan uma qardha day anigu gabadhaas ma ahayn gabar muxuu ahaa waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo inay waxaan ka hadlayay amaanteedii iyo dhaqankeedii iyo wixii suuban laakiin wax walba sabab baa keenay bal sababta waxa keenay waa indhaha ya indhuhu wax soo ma arkaan ayagaa sababay dhibta muxuu ahaa hawsha inaan ka warramo quruxdeedii amaanteedii muxuu ahaa dabeecaddeedii markaan fiiriyey dhinac walba ma ujeedaa xataa midabkan la bedelayo ma iyan bedelan ya beeshka damay ku jirtaa axmed biif mid kaloo waxaa jirta uu qaado la yidhaha erga caashiq oo aqalkaaga timi maxaa oran lahayd miraheedii waxaa ka mid ahaa qoraxdoo ilays uunka nuurisiyo aroor waa beriyaay ubax dayr baxaay arag quruxsanay indha caashiqoo adi aawadaa ku ooyayo ooman baan ahay erga caashiqoo aqalkaaga timi maxaa oran lahayd may erin lahayd may inkiri lahayd ma albaabada adiga oodan layd mise aramidaad ila qaybsan lahayd maxaa oran lahayd marka labadaasba biifaa qaada ninka la yidhaahdo faysal xawaase wuxuu qaadaa hees la yidhaahdo jacaylkii sabiib hay sabiib dadku waxay u haystaan cunto keliya laakiin dhinaca jacaylkana loo micnihii jacaylkii sidii macaanka jacaylkii sabiib sonkor iyo macaan sidii malab ahaa ma hadduu sun iyo sibir kuu dhadhamay oo saaqsan tahay qalbi saafiyo sidii aad ogeyd kuu soo manaaday marna lama sire waa sare kacdoo seeraha fogiyo samadaa tagtay armaad siibataa oo soo dhacda yani qof subaryorataa ku jiro qabweyni oo bela isu qaatay yani marka waxaa ku jira jacaylkii sanado sooyaalka taxan soo jireen ahaa miyaad sahashato sanaantan xataa isla seegannahay suuq haddaan iska hormaano jacaylkii intaasoo sano soo socday miyaad sahashato sanaantan xataa isla seegannahay
sul dhabaala iyo sanqar ku baxda ku sawirantay sidaadii ma tiid waa sare kacdo maya bala ku soo dirtay hay waa sare kacdo seeraha fogiyo samada tagtay armaasiba taa soo dhacda marka qisadan maadaama adigu abwaankeedii iyana xagga u dhacaysay waa adigu waxaan arkaa waxa arkayso laba qof oo waxa arkaysa isjecel mid sabir yarata ku jirto mid ay daacad ka tahay mid yaani waxas waa mahadsan tahay abwaan waa aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii heestaas dhex yar baa waxay ka mid tahay heesaan runtii Axmed Biif qaado adigu maadaama aad leedahay aan aadka u dhageysto marar fara badan habboon muddo dheer kulay fanka gobolka bari waxaad ka mid ahayd fanaaniinta bal intee koox baad tihiin maxaad nooga sheegi kartaa fanaaniintiina gobolka bari jooga maasha Allah Faadmo waa mahadsan tahay waxaan kaaga mahadcelinaynaa fursadda weyn aadna siisay anagu waxaan nahay 16 qof oo fanaaniin ayaan gobolka bari ku joognaa gobolka bari habda gudoomiyihii jooga ayaan la shaqeynaa degmadana waa ka tirsanahay waxaan qabanaa run ahaantii munaasabadaha sida 1 Luulyo sida Agoosta 8 Maarso barnaamijyo aad u badan baan qabanaa xaflado caadi oo ka hadlaya nadaafadaha baan qabanaa waxa arrimaha bulshada looga baahan yahay oo dhan abwaankayga Cabdi Cali Boos run ahaantii heeso badan buu noo sameeyaa oo aan u haynaa oo wadani ah abwaano kale sida Ibrahim Ciise Cajaa'ib oo isaga laftiisa suugaan badan oo uu leeyahay aan qaadno oo aan qabano waan shaqeynaa mudnaantayadan xoogaana waa helnaa maasha Allah waan qaadanaa xoogaa mushaar lama oran karo guna yar baan qaadanaa oo gobolka hoos tagta maasha Allah tabaaraga iyadana sidoo kale tixgelina waan helnaa tixgelina ma helno waxaa naga dhiman qalabayn xoogaa ah muuqaal xoogaa ah oo fanka waad aragtay fanku qurux baa lagu soo saartaa waa la qalabeeyaa waa maxaa telefoonka la siiyaa meelaha la dejiyaa fanka macnaha xoogaa yar oo naga jiifo mooyaane xaggaasna waxaan leenahay dowladayadana soo eega indhaha nagu soo eega wax qabadka waan idinla qabanaaye misana si fiican noo geliya nagu dara isbedelka cusub madaxweynaha cusub kooxda waa bari Puntland maasha Allah tabaarak anagu ma dhihi karno koox jirto ma waa koox fana oo shaqeynaysa waxaana kamid ah fanaaniintii naga tirsanayd sida Bashiir Faarax Guri fanaaniinteedii kala barobar way kooxda shaqeynaysa maxamed yare orgumistahaygii fanaaniin badan baa ku jirta fanaaniinta kale joogtana waxaan leenahay dee ciid wanaagsan waa fanaaniinteedii meel walba oo magaca faneed joogana waxaan leenahay waad salaamantihiin ciid wanaagsan Soomaaliya oo dhan marka Faadmo Taxadar waxaan aad iyo aad kugu mahadcelinaynaa fursadda wanaagsan ee aadna siisay aad ba mahadsantihiin habboon waan ku mahadcelinayaa abwaanka bal ugu dambeyntii waxaan taaganahay gabagabadii barnaamijka maxaad ku sii dirsan lahayd adoo aad soo koobay waqtiguna wayna hayaa wayna darteed anigu waxaan ku darsan lahaa oo kaliya inaan halkan ciida darteed aan ka salaamo asxaabtayda sida nin saaxiibkayga la yiraahdo Maxamed Abshir Socdaal oo aad iigu dheer Cabdullaahi Cumar Fawsi Cabdullaahi Timan Faras Axmed Yare gaashaan la sare Axmed Yare muxuu ahaa Cabdi Samad muxuu ahaa Cabdi Samad Dhaanto Burhaan Xuseen Aw Nuur iyo muxuu ahaa iyo asxaabtayda gaar ahaan Cabdimajiid Samatar Jafaan iyo asxaabtayda iyo intii fanka jecel oo dhan dhammaantoodba aad halkan waxaan leeyahay ciid wanaagsan macal ciideen ayaan ku leenahay bal habboon labada qof ee dadkoo dhan soo wada koobi karno aad salaamaysid anigu waxaan salaamayaa horena waa ku iri qaasatun sida fanaaniinteeda oo kaleeto oo caawa anigala qayb qaadanaynin barnaamijka baan waxaan leeyahay ciid wanaagsan bulsho ahaana in allaale intii i garanaysa ayaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan macal ciideen baan ku leenahay aad baad mahadsan tahay guud ahaan taas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii ay maanta martida noogu ahayeen oo ciidka inta badan lahayn fanaaniinta gobolka bari iyo abwaanaduba ha nagala qayb qaateen waana ka mahadcelinayaa abwaan Cabdi Cali Boos oo dhankaygan bidix fadhiya iyo sidoo kale fanaanada
runtii gobolka bari aad looga yaqaano kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed Habboon Cabdilaahi Suleybaan aad ba mahadsantihiin dhamaantiin waxaan u mahad celinayaa iyagana marna aan ilaabi karin garoonkan sports garoonka Green Sports oo kamid ah garoonada cusub ama magaalada Boosaaso garoomada sida casriyeysan u habaysan oo lagu soo kordhiyay kaasoo dhalinyaro fara badan oo sportska jecel in badan ay ku ciyaaraan aad ba mahadsan yihiin waxaan aad iyagana u mahad celinayaa asxaabta dhanka kaamirada Maxamed Maxamuud iyo Khalid Ayuuni oo iyagu dhanka kaamirada maanta kaamiradaasi quruxda badan idin soo gudbinayay anigoo Faadma Taxadar Yuusuf waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubarak asxaabtayda kale ee London ayaan dib idinku celinayaa